magaalada Kaabul ee caasimada dalka Afghanistan iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkaas ayaa lagu qabtay dabaaldegyo ballaaran oo loogu dabaaldegayo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii ciidamada ururka Taliban ay talada dalka Afghanistan kala wareegeen ciidamadii huwanta isbahaysiga NATO ee ay dawladda Mareykanku hogaaminaysay ciidamadaas oo muddo 20 sano ku sugnaa gudaha waddanka Afghanistan. Sabihullahi Mujahid oo ah afayeenka ururka Taliban oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 15 bisha August ee sanadkii 2021 ay tahay maalin macno weyn u leh dadka iyo dalka Afghanistan. isla markaana wuxuu xusay in ay tahay maalin taariikhda u gashay mujaahidiinta ciidamada ururka Taliban waa sidoo hadalka u dhigay oo uu sheegay in muddo 20 sano ay dagaal kula jireen ciidamadii Mareykanka iyo xulafadoodii ku sugnaa waddanka Afghanistan. afayeenka ayaa si gaar u xusay in mahad oo dhan ay u sugnaatay Allah isagoo sheegay in maanta dalka Afghanistan uu haysto amni iyo nabadgelyo aysan dadka Afghanistan helin 20 sano ee ay ciidamada shisheeye joogeen gudaha waddanka Afghanistan. si guud marka loo fiiriyo dabaaldegga sanad guurada labaad ee ururka Taliban ayaa u muuqata mid ay hoggaanka sare ee Taliban ay ku doonayaan inay aqoonsi buuxa uga helaan adduunka iyaga oo sheegay in maanta ay gacanta ku hayaan dhammaan gobollada dalka oo dhan ayna ka go'an tahay sugidda amniga iyo xasiloonida waddanka Afghanistan. waxaa si xusid mudan in weli ay jiraan cabasho iyo eedeymo kaga imaanaya hay-adaha qaramada midoobay oo hoggaanka sare ururka Taliban ku eedeeyay inay ku tunteen xuquuqda dumarka gaar ahaan xiritaanka goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga ee qurxinta dumarka iyo weliba eedeymo kale oo la xiriira caburinta qaybo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha waddanka Afghanistan. balse arrintan iyo eedeymahan ayaa waxaa ka gaabsaday hoggaanka sare ee ururka Taliban iyaga oo xoogga saaray ka hadalka xuska sanad guurada labaad iyo guulaha u soo hoyday muddadii 2 sano ahayd ee ay hoggaanka u hayeen talada waddanka Afghanistan. waxaana warbixintan la socodsiinaya anigu ah Maxamed Saciid Saxaaf intaan ku kulmayna warbixinta xigta haddii ay beedmo meel walba dunida ka joogtaan waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.